بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan maanta halkan ku baranaynaa sidii wireless network loo jebin lahaa wifi ku dhow aad u jabsan lahayd si fudud annagoo isticmaali doona command prompt cmd ama command prompt sidaa u taqaano oo shaashada madow ee computer windows ama 8 ha noqoto 7 ha noqoto 10 ha noqoto xp ha noqoto waxa dhanba command prompt sida loo isticmaalo ku jibin doona cmd markadaas fiirayna waxa wireless oo noo shidan maaha no connection internet u leeyahay waxaan arki doonaa wireless kan oo weydiin doonaa wireless kan leenahay hasta socono waa jaanis dadkii wireless sida xaafadaha inuu dhaca jeclaayo diyaar wax internet hadda nooma xirna oo connection nooma aha waxaan leenahay cmd haddii lagu yidhahdo waa command prompt waxaan leenahay right click run administration you can go waxaan wacanaynaa waxaan isticmaali lahayn net haddii loo yiraahdo waa netka ayaa iskale oo waxaa loo isticmaalaa markii la joogo window goob kale la joogana waxay leedahay si linka kale goobtaas markii la joogo inuu ka qowr duwan tahay laanki waa marka waa in la sheego ilaan boortiga laga soo gala loo baahan yahay mootogota la isticmaalayo laan waa in la sheego marka walaan la yihahda ilaa meesha wax laga arkayo dhan waa walaankay ku jirtaa oo marka laankaas la isticmaalayo in baasweerka dhan meesha ku jiro waa laankii in loo tago marka la magacaabo laanki laan show marka dhe isoo muuji that's walaan show profile marka talaabta waxaad isoo muujisaa wax wireless ah isoo muuji hadda waxaa noo soo muuqdo wireless laba magac midda koowaad waa eng haajir qofka labaadna waa fanax ma aqaanani fanaxan wuxuu yahay bas waa isoo qabto waa iska fiirinayna fanaxan ku tijaabo ka qaadina hadda ilaa mid waa midka aniga aan ku xirnaa oo ii dhow oo aniga isticmaalayay fanaxanaan fiirinaya waxaan leeyahay net walaan wata waan laanka la isticmaalaa net laan show waan la yirahdaa marka isoo muuji show appear for profile waa in horta magaca la sheegaa magaca la raba in la weydiiyo in lasoo muujiyo baasweerkiisa la arko waa magacee waa in yidhahnaa nime waa in horta lasii sheegaa meesha loo socdo ilaa magaca la raba marka in la sheegay nime equal fanax qofkaasaan fiiraxin doonaa fanax kiiga baasweerkiisana noo soo muuji oo clear nooga dhig hadda clear taa micno badan ay ku fadhidaan marna kanadiis way tegi doontaa ana waa clear waa keliya waxaan leenahay inta inta waxaan argaa haddaan dib u fiirino type waa wireless lan nameka waa farax control optionka
kuwana waa connection mode, connection manual, network pro kaase auto switch, mac randomization, cyberin waa connectivity setting marka waxaa lagu xiran yahay connectivity settingka lagu xiran yahay waan ku xiran connectivity number of SSIDs waa nameka uu leeyahay waa SSID waa name waa fanax name numberka waa 1 ina waxa ka kala malahan network type waa infrastructure, radio type radio type, vendor extension no person, security setting authentication waa WBA2 personal inta badan dadka security sameeyaad arki doontaa waxay isticmaalaan WB2 ama naanooyin noqdeena anyone ama reesan noqdo waxa dhan qofku markuu isticmaalayo arki doonaa WBA WB2 markaas waa arkaya cyber oo CMB security key operation key content marka wixii meesha noogu jiro key content-ga loo baxna waa kana marka ma aqaano this number this waa wireless number qofkan wireless kiisa waa ana marka waa 620883 ma garan karo cost setting marka muhiimadda guud inaan aragno wireless password magacii qofkana magacaan waxaan anaga soo weydiinaa inoo soo kala gareeyay inoo soo muuji passwordka oo kana marka maanta cashirkeenu intuu noo ekaanayaa faa'iideysi wanaagsan cid wireless-dan ka darabtooy